waxaan ku tilmaami karaa qaswadii ugu horeysay inay tahay oo qaswatu Badr ah هذا هيابنا بريتنا وقسوة الأحد هو الضبس يشيك شيء ما أيوه wuxuu yiri maanta waan faraxsanahay waa maalintii Uhud waa maalintii Uhud waxaan u malaynayaa hogaamiyaha ee wadani waa nin diinta iyo taariikhda aan waxba ka aqoon waa maalintii ay muslimiintu jabeen ee 70 saxaabi la dilay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhaawacay حمزة سيد حمزة ودنتي runtii waxaan u malaynayaa inuu nin jaahil ka diinta yahay oo aan diinta waxba ka aqoon waxaan ku tilmaami karaa qaswadii ugu horeysay inay tahay oo qaswatu Badr ah هذا هيابنا بريتنا وقسوة الأحد هو الضبس يشيك شيء ما أيوه waan faraxsanahay maanta waa yoom Uhud runtii waxay ahayd maalmin ugu adkaa ee taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam soo martay waxay ahayd maalin dhibaato fara badan nabiga ay soo gaadhay sallallahu alayhi wasallam markii muslimiinta la jabiyay nabiga waxa ku soo haray 9 saxaabi oo kaliya markii ay gaalada isugu habarwacatay waxay isu dhigayeen gantaalihii iyo warmihii gaaladu ay ku soo ridayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam toddoba kamida baa goontii lagu dilay waxa ku soo haray laba kaliya labadaas waxay ahaayeen Talha bin Ubaydullah iyo Sa'ad bin Abi Waqqas labadaas saxaabi oo kaliya inta kadib ayay saxaabadii dib u soo noqotay oo ay soo gaareen rasuulka sallallahu alayhi wasallam runtii ninka hogaaminaya wadani waa ninka taariikhda islaamka jaahilka ka ah ee maalmihii ugu adkaa ee soo maray muslimiinta le waan ku faraxsanahay oo waa yoom farx